Assalamu alaikum. Today we're going to continue from our previous videos about visiting your GP. Assalamu alaikum. Maantay waxaan sii wadaynaa videogii hore ee booqashada GP-ga. I am Dr. Smith and this is my patient, Mrs. Omar. Kani waa Dr. Smith. Anigana waxaan ahay bukaanka socodka ama patientkiisa oo Mrs. Umar. So, Mrs. Omar, please tell me some more about this pain in your back. Mrs. Umar, waxaad ii sheegtaa xanuunkan oo dhabarka ka hayo. Would you say it's a throbbing pain or a burning pain? Ma waxaad leedahay xanuunkaaga waa xanuun dikaan miya mise xanuun gubasho camal waa ku gubayo. My pain is it is a throbbing pain. Xanuunkayga waa xanuun dikaan ah. And how strong would you rate the pain level? If 10 is the most painful pain you can imagine and 0 is no pain at all. xanuunkaaga bal ii tilmaan ama number ii qabo. xanuunkaaga numberka markuu 10 meesha ugu daran oo yahay eberna xanuunba aadan dareemeynin. xanuunkaaga number ii qabo. I would say this pain is number 7. aniga waxaan leeyahay xanuunkanitood waa 7, number 7. Have you been taking any painkillers? xanuun baabi'iye ma qaadatay? Yes, I have been taking paracetamol. Haa, aniga waxaan qaadanayay paracetamol. And does this help with the pain? Kan ma kaa caawiyaa xanuunka? Yes, for a few hours, but then the pain comes back. Haa, dhowr saacadood. markaa kadib xanuunka haddana wuu soo noqonayaa. Have you tried any physiotherapy? Physiotherapy ma tijaabisay? Physiotherapy? What is that? Physiotherapy maxaa waaye waxaas? Physiotherapy is doing exercises, having massages and other techniques to reduce pain. Physiotherapy waxaa waaye waxyaabo ku saabsan jijimicsi iyo masaajo iyo siyaabo kale si xanuunka loo yareeyo. Physiotherapy is very important. Physiotherapy waa muhiim.